inaga Soomaali hadaan nahay cuqdad inuguma jirto oo dadka yani muslimiinta ah cuqdad inuguma jirin qofkan waa muslim hadii la yiraahdo way inugu filayd laakiin maanta waxa dhacday in la iska shakiyo oo ruuxi oo muslim ah la yiraahdo caday inaad muslim tahay oo maxaan u cadaynaad kartaa maya qofkii sida la raba yeela kaan baa loo aqoonsan inuu muslim yahay dadkoo dhan ma hal qolal isugu geyn kara marka oo la dhihi karaa صح هذا والله صح مسلم تحقي استاك أنا صاقل بوالو جاكرينا ياي إسلامكم كوين يا سلاس قرآنكم مركو سود جاي يا وحاجر السلح العربية مركي ليشي شروطي لويشي وحاكم لها أو هنتي مقال كمركي لفير المسلمين تو أي كعروضين قفكي قال هذا كيم هذا أو مسلمين تو يمادة مسلمين تو إن إنكاس مسلم كي يمد أي قال هذا كل عليان دومة الجندل أيها أيضا الشركي مركا الله فرديبا أون لا يكلا دريرين يا أصوى صوغو السيء والسلسلة دي سي جيدايا أيها مسلمين تيكو كرنعي مركا أسانينك قريش وأهلا وحوري هشيسك ورقدي أنكو قرني قالينك أنكو قرني ولي مونا قلالين ولي وسيقو ياهي فلنتي سنة وحالقات باللابايا نين كان إن دبلوغو عليو مكو أو نغا صوغوست مركا أسانتين لقبتا لغو وريجي حالي قواكنا وإن مكا لغو عليو عمر بن الخطاب ويقول انت ويسن نين مسلم soo baxsaday oo soo rafaaday gaaladii uu ka soo baxsaday in dib loogu celiyo markaas intuu yara garab socday asoo yaani sabirsiinaya iska noqo ilaahay faraj buu ku furi doona saa uu celiyay bas xoogaa markay socdaan meel xasiin marayaan buu hal mar intuu ka booday kuwii waday oo safety uu la baxay ayagu ay wateen ayuu kala eriyay asagoo cararay duurku galay marka bal madiinana ma jira makana ma joogo duurkaas kale iga soo qabtay markaas oo meesha qof kasta oo muslim ah oo ka cabsanay haduu nabiga iyo Madiina aado heshiis baa ka yaalay in la soo celiyo Madiinaba ma aadee dawmatul jandal xaquu joogaan buu dhahaa halkaas waxa ka sameysantay marka jabhad mucaarad ah oo maka raashinka galaya iyo safarka meel ay maraan u diidayso waa kaas wax ka qaadab way saruursadeen jabhadaas ay sameysteen ruux bixi karo oo maka ilaa markii dambe warqad ay ka soo qoraan gaalada ay dhahaan maxamedow ninkaas duurka ku jira annaga ayaa u fasaxnay oo heshiiskii annaga ayaa ogole intaad u yeerato meeshaada ha yimaado hana noo soo celinin ilaahay faraj u furay bas sidii lagu geeyay waxa soo baxday markii dambe gabdho ayaa soo baxsaday oo mu'minaad ah markaas ay asxaabtu u imaadeen gaaladii waxay yiraahdeen heshiiskii qof kasta oo naga yimaado ayuu ahaa rag iyo haween looma kala saaraynin gabdhahaas waa in la soo celiyo gabdho iyo nimanna isku mid ma ah niman way jabhadayn karaan oo duurkay gali karaan laakiin gabdho ma jabhadayn kara asxaabtu way ku adkaatay inay gabdho mu'minaad ah ay dib u celiyaan aayada soo degtay marka waxa la yaa ayuha nabiyyu idha jaa'aka almu'minatu muhaajiratin famtahinuhunna imtixaanka qaada imtixaanka laga qaado ma taqaanaan su'aalaha la weydiinayo waxay tahay ilaahay rasuulkiisa ma rumaysantiin ka soo tagitaanka aad marka ka soo tagteenna jacayl ilaahay rasuulkiisa aad u qabtaan miyaad u soo baxdeen mise xanaaq nimankiina aad ka soo xanaaqdeen ayaad u soo baxsateen hadday dhahaan ilaahay rasuulkiisa jacayl aan u qabno ayaan u soo baxsanay imtixaanku way ku baasayaan waxa la famtahinuhunna imtixaan oo waxa lagu imtixaan iimaankooda iimaanka la isku imtixaami marka iimaanku waa wax qalbiga ku jira oo qofka gudihiisa wax ku jira hadii intana meesha fariido qof qalbigaaga waxa ku jira cid sheegi karta ma jirto iimaan aan leeyahay marka dhahdo yaani oo aad sheegato waa in inta aad sheegatay laga qanco laakiin hadii leedahay ma sheegashada sheegayso waxba kama jiro waa in gudahaaga aan soo ogaado inuu runka yahay in kale shaqaan la inoo dirin way taas oo ilaahay muxuu famtahinuhunna imtixaama allahu a'lamu biiimaanihinna iimaanku idinku guduhu ku jira ma ogaan kartaan dhabnimadkiisa in kale laakiin idinka maxaa masuudi ka saaran yahay banaanka wixii laga sheego ilaahay rasuulkiisaan rumaysanahay haday dhahaan ma rumaysnid gudahaaga afkum baad ka sheegtay lama dhahayo famtahinuhunna allahu a'lam biiimaanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar hadaad ogaataan inay mu'minaad yihiin gaalada u celinina inay mu'minaad yihiin see lagu ogaan marka halkaas su'aal baa la weydiin ilaahay rasuulkiisa ma rumaysantiin ha ilaahay rasuulkiisa aan rumaysanahay bas waa mu'min marka Soomaalideena saysa u ahayd oo muslimka yaani la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah qofki yiraahda muslim uu ahaa umba waxa la soo dhajiyayba ma ba ansaxaysa la ilaaha illa muhammadur rasuulullah idana sheegaysan waa in dib loogu noqdo waa maxaa ka rabtaan
محاضرة الإعلامنا يا على عقارته كسر هذا محاضرة يا جرتا هي محل هذا يا نواقض لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا البرنايا ورمحاو برنايا سدتك كرمت هذا برنايا هذا واحد دليل أو هاي صوت هذا ماشي كما في عنهم أديكوا عندي هو اللي جاب برنايا ست ترتيب وحاول ترى هذا هالكاس وكاخل ضي هالكاس توسيسو نبي موسى ذكي للسعود محيكوا يرادين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة صور وين ما هذا الروح الدليل هذا ودو يرادو أنا وحان رب إلهي إلا عيسى مايو بسم الله الرحمن وين وكان لي صوما اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نوم سمحوكوا يري قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالم في ردتك لها اجعل لنا إلهنا وحال إله وإذنك موالنتين أدونك إذنك أبو قصر رئيسين به قف أدونك أبو قصر رئيس هوس الصديق يا حقال لوارك مرة قف مرة وحوش يجيسو وحال الله وش يجا كرة الله قاضى يعني واتفي عن تايب ساز لكن هذا اللي سوى استاجته وحاجي هرب نو برسنا هذه يكو على بلابا ماذا سفينة الله بلابا هذا كور وتكنجري بري جوهره مركز سفينة صلاة أكل دقيقة موت يصير لا يابله فاتحدوا حتى وحكوا آخرنا يا التشديدات في الفاتحة فوق الراء وفوق الشين شد ماشي لسارة أيضا وأين تسوى آخر الرحمن الرحيم بريقوا هرم كنت كنا وسكدر يرجع ما الرحمن الرحيم مالك يوديش سفيني مركو سود مي يحور إلهي صلاة دي أن تكنجر سفينة كهر أجر كمر ربعه يعني لا يقب سنة إبرة يهدو تيهور وحن تكن يعني لا يقب سنة مركا sidaas oo kale day jirto oo dadka qaar ka ilayeen la ilaaha illa allah inuu hor waxba kama jiree hadda leedin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda mayna bilaabanin waxaan ka soo biloon inta nabiyan soo akhrin quraanka ku jirtay nabi nuux soo kamayna soo bilaabin muslimiintu kamid aha oo wuxuu yiri fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajra illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin nabi nuux had isku diintiin marka nabi nuux had isku qabiiltiin min almuslimin waa inagana maxaa leeyna yiraahdaa huwa millata abiikum ibrahim هو سماكم المسلمين نبينا محالي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين نبي إبراهيم محالي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي يوسف حوري ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين مركتك مسلم كأسداسا أيامكم صفنا inteena meeshan joogta hadii su'aal in weydiyo waxaad sheegtaa maalinkii kuugu horeysay oo aad ku dhawaaqday la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah bal cidig ha ka soo joogto farta taagtay qof haduu jiro xusuusan kara maalintii ugu horeysay ee la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah oo dhahay hala soo sheego la yujad lama helaayo way sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay kullu mawludin yuladu ala alfitra qof kasto oo la dhalaayo islaamnimo ku dhashaa hatta caruurta gaalada mootay waa muslimiin إلى كقان جاران أو كجالوبان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حاجة كلا لما دين في المسلمين كلا تلمام مايو دين تمسلم كلا مش يجي ولا ما دين حال كلا غير فأبواه يهودانه أبياشي سا والد كيسا يهود كدجاي أما كريستان كدجاي أما مجوس كدجاي أبيال كيسا مسلم كدجاي لما دين لما مش يجي لأن إسلام نمضوا ما الله حنا مجرد عيدا فدرتي لغدا شيء كل مولود يولد على الفطرة أي إسلام كاهد قفك مسلم كأمرك أو أبي يريد مسلم كهاين ماشي بكسي وضايا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سيدا سمك إنه وضطاه وذا حافظ أنه طريقوين كان كم مركو دعينا وحوله إلهي ومسلمين تملي جوجان با موافقة يمن نمسي قال لنا تفرارق يكلتك إلهي وكريد سو ما قلب فعنا وذا كاس مسلمين تودن ملي جوجان با أصلا ما كلا قاضي سلفية إخوان المسلمين يتبليقيو صوفية معه مسلمين تملي جوجان با إله موافقة سي مركو حالا بقى مسلمين تينا دو فهمتين قف كستو لا إله محمد رسول الله داهي معه كوح هذا أوكريا مسلمكو معه إسلامكو كون يهال كوح أوكريا ساس دراد الشيخ حسن البنا وحويه وحانو شيئا وليعلم قومنا ضد كانوا هاو قاذين مركاسا حكودري وليعلم قومنا وكل المسلمين قومنا مسلمين تودنا وقوم كني وليعلم قومنا وكل المسلمين قومنا انت اسمك بسوا قران كرنا ان المسلمين تودن اي قوم كنيين حي وحب ما كلنين انما المؤمنون اخوه المسلم اخو المسلم
dadkii la ammaanay muhaajiriin iyo ansaar quraanka lagu tilmaamayna ayagoo duruuf adag ku jiro oo guryahoodii laga soo saaray oo xoolahoodii laga dhacay ayaa haddana waxay ahaayeen yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa u gargaareen waan dhibaataysanahay diinta loogama joogo diinta adoo dhibaataysan la rabaa in la wado ulaa'ikum saadiquun waxa la amaanay kuwii soo dhaweeyay oo ansaaraha walladina tabawwa'u daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu kadib waxa la sii amaanay dadka gadaalka iimaan doona oo tilmaamahooda ay kamid yihiin walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iiman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وما waxay ku dhisantaa marka sidaan dadkii inaga horeeyay inaan u qirno wixii juhdi ah oo ay diintan soo galiyeen una ducayno haday wax ka xumaadeen ama dhaliil aan ku aragnana rabbana ighfir lana ayaa u taal ilaahay u dambi dhaaf lama caaya dadka waxa laga ma sheego tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alayha maktasabat wala tusaluna amma kanu ya'malun adiga xaakimatid lagu badirin wama ursilu alayhim xaafidiin dadka ii soo waardiye lagu ma dhayn adiga wixii ka khaldamay ilaahay ugu dhaaf dadka nool ee jooga muuminiintana maxaa laga rabaa inaad samayso inaad ku ducaysato wala tajcal fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qof mu'min ilaahayow oo ruxmayana qalbiga ugu haynin walaaltinimada islaamka meesha uu koraysan waxa la yiraahdaa al-ithar wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qof wuxuu u baahan yahay intuu isdhaafiyo walaalkii inuu siiyo waa meesha ugu sareysa walaaltinimada meesha ugu hooseyseen laga hoos mari karna waxay tahay salaamatu sadri laabtaada inay nadiif u ahaato qof kasta oo muslim ah oo aadan xiqdi iyo uruxmo qof muslim qalbiga ugu haynin waxana qofka muslimka hadaa isfahmi weydaan kala leexda qof walba ilaahay saa caabudo isuna duceeya qalbigana hal isu furo qof muslim uqdada aad u qabto ma tarayso laakiin hadda maxaynu aragnaa Soomaali maxaynu ku dhacay waxa ama masaajid ha ahaado ama idaacad ha ahaato ama telefishan ha ahaato ama Facebook ha ahaato dada waxay la taagan yihiinba say dadka isugu diri lahaayeen hadal fiican ba kama maqlaysid hebel waa sidaas koo hebel waa sidaas hebel waa sidaas hebel waa waxaasna waa wax la isu xisaabinayo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid marka ilaahay qalbigeen inuu saafi ka dhigal raba saxaabigu waad ogtiin nabiga ugu bishaaray jannada inuu galaayo saxaabi kala umartay wuxuu yiri bal aad soo ogaatay wuxuu jannada ku mutaystay wuxuu arkay saddexda habeen uu la joogay wax dheeri ah oo sameeyay aysan jirin markii dambe uu sheegay wuxuu bishaaradaas aan ku wada nabiga jannada ugu bishaareeyay waxa aad isleedahay jannada ku mutaysatay ma sheegi kartaa wuxuu yiri intaad arkayso baan sameeyaa caamka ah laakiin waxaan isleeyahay habeenkii markaan seexanayo qalbigayga isagoo saafi muslimiinta u ah ayaan seexdaa marka inay taas taan u malaynaaya marka waxa rabaa habeenkii marka la seexanayo in muslimiinta la iska cafiyo wala ilaahay qof muslim qalbiga waxba ugu mahaayo laana inaad dhiman doonto inaad soo kici doonto lama oga الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى مركا ذو قلبك يسافيها إنها تكتو ساس أيا في عن مركا إن ليس عفيو إن ليس مسامحه إن ليس كحد قدبين إنت سي دينتينو هي محبة دينتي معانك هذا ساو في عناد ونباو حلوب بدليون وحن لقوه شين كرين oo dhib badan oo dadka isku rafaadeen taas marka waa fahamka oo qalloocday diinteena islaamku waa diin nololeed iska dhaaf muslimiinta dhexdooda xataa gaalada ayay naxariis u tahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin tabaaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadira dunkuna nabiga loo soo diray marka ilaahay tawfiiqayna waafajiyo ummadeena qalbigeeda Allah isu soo dumo dhibaatadan ku jirna Allah inaga bixiyo colaadaha iyo waxyaabaha wadanka ka jira ilaahay nabad ha inoogu bedelo quluubta ummadeena Allah isu soo dumo isjacayl iyo walaaltinimo ilaahay qalbiga isu geliyo colaada iyo dhibaatooyinka iyo isnacaybkana ilaahay inaga qaado inagana ilaahay inaga dhigo dad hawshaas ka shaqeeyo oo dadka isu soo dhaweeya oo aan dadka kale erin muslim meel uu joogaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u gargaaro sallallahu ala sayidina muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh